kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha leh ku taxan janaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkana kuwa xiisaha badan ee maanta laga qoraalmaha koonfurta iyo sidoo kale Bollywoodka. warbixintana hadda waxaan ku bilaabi doonaa filimka Fighter ayaa ugu dambeyn maanta waxa uu kare tiyaatarada gudaha Hindiya iyo caalamka. sidee ayuu ku furmay filimkan Fighter ayaana isla eegi doonaa. filimka Fighter ayaa waxa uu qaatay bilaabasho u fiican ee qaybaha tiyaatarada marka loo fiiriyo. filimkaas ayaa waxaa laga filinayaa in uu korokac u sameeyo inta ka dhiman maalintiisa, taas oo soo kale filimkan ay noqonayso in lacag fiican uu keeni karo. lacagaha qiyaas ahaan la qiyaasi karo maalintiisa kood la imaan karayo waxay u dhexeeyaan 50 ilaa 60 karoor, taas oo ay tahay filimkaasi maadaama maalin weyn ay tahay in soo kale filimkan uu yahay filim weyn in lacagahaas uu la imaan karo. Tiger 3 ayaa la sameeyay filimka marka loo fiiriyo qaabka uu shaqadiisa u socoto. filimkaas ayaa 40 karoor maalintiisa koowaad waxay u ahayd lacag aan u fiicneen, iyadoo filimkan uu kasoo hormaray maalin Diwaliya. sidoo kale filimkan ayaa arintaasi dib u keentay, taas oo ku wacna in maalin fasax uu ku soo aado. marka loo fiiriyo Fighter inuu ku aado maalin Republican Day ee maalin weyn u ah Hindiya ayaa waxa ka dhigaysa in filim lacag weyn oo soo xareey karo. sidoo kale maalintiisa labaad wuxuu haysaa fursad kale, taas oo sidoo kale lacag fiican ku soo xareey karo. filimkan marka laga gudbo qaybaha Hindiya sida Gujarat, Rajasthan, CBCI, Bihar ayaa wuxuu yahay filim halkaas ku wacan, iyadoo sidoo kale inta badan hogaamiyaasha filimka ay deegaanadaasi kasoo kala jeedaan. filimka qaabka ku firisa ayaa waxay noqonaysaa mid heesiisa inta badan aysan hid noqon oo halaas kamid ah hid noqotay, hasaatee sidaas ay tahayna filimka wuxuu yahay mid guuleysan kara. filimkan ayaa markaan fiirimay qaybaha caalamkana wuxuu yahay filim si wacan halkaasi kaga furmay, hasaatee filimkan ayaa waxay noqotay in qaybaha golfiska laga mamnuucay. waxaa ugu dambeysay dalka Imaaraadka Carabta oo iyadana ay mamnuucday filimkaas in aan laga daawan, iyadoo markaan laga wada sinaaday gabi ahaanba gudaha golfiska dalalka ka kooban inay iska diidaan filimkaas sababo u arkeen in uu yahay mid filim dhinac u janjeera oo lagu gafayo weerarka ka dhacay Pulwama kaas oo ah la dagaalanka argagixisada. sidoo kale dagaalkii u dhexeeyay 1971 ee Hindiya iyo sidoo kale Pakistan ee dhulka Bangladesh. sidoo kale qaybaha Kashmir ayaa waxaa la sheegay asna filimkan in laga mamnuucay. naakal daawad waxaan si raacsan doonaa iyadoo Fighter maanta oo tiyaatarada uu koray gorma ayaa la rabaa oo tigin lagu soo fasaxay iyo sidoo kale shabakada iibsatay. filimkan ay ku midooban Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor ayaa directorka soo director gareeyay ama soo agaasimay filimada Wo iyo Batan ee Siddharth Anand, waxaana ay tahay filim uu ku jira doorkiisa hogaamiyaha Shamsher Patania ee loo garan ogyahay Bati ee doorka Hrithik Roshan, iyo sidoo kale Meena Rathore ee loo garan ogyahay Mini ee tirshada Deepika Padukone ee doorkeeda ay ku jirayso, taas oo soo kale yihiin kuwa la dagaalama argagixisada. sidoo kale Anil Kapoor wuxuu yahay hogaamiyaha groupka ee loo yaqaan Rakesh Jason ee loo garan ogyahay Rocky. filimkan ayaa sidoo kale jalayaal kala qayb ka ah sida marka loo fiiriyo Atosh Rana, Risha Shodhi, Sanjeev Jaiswal, Talas Aziz, Sangeeta Sheikh iyo Karan Singh Grover iyo sidoo kale Akshay Oberoi. filimkan ayaa rajo weyn laga qabaa inuu guuleysan karo, iyadoo arrintaas ay jirta ayaa markaan warar waxay kasoo baxayaan in filimkan uu noqon doono mid lagu soo fasaxi doono qaybaha OTT-ga, gaar ahaan waxaa iibsatay sila sheeg shabakada Netflix, taas oo soo kale filimkan lagu wado in OTT-ga lagu soo xilliga hooliga ee ku aadan tahay 2024 ee samarka, sida markaan wararka ay helayaan. hadda wararkaas ay run noqdaan ay waxay ka dhigaysaa in dhici karto in filimkaas xilligaas laga daawado dadka aysan u suurtagelin in ay tagaan ama ay ka daawadaan filimkan qaybaha tiyaatarada in fursadaas ay heli karaan. anaa kale waxaan isla eegi doonaa filimka Ajay Devgan iyo sidoo kale Armando Fan iyo Yothika ay ku midoobeen ee Sheedan ayaa waxaa lasoo fasaxay muuqaalkiisa kooban. cabsida ugu horeysa ee filimka Ajay Devgan, Armando Fan iyo Yothika ee Sheedan ayaa ugu dambeyn maanta lasoo fasaxay isagoo muuqaalkiisa kooban lagu soo aadiyay January ee maanta ee 25-keeda, kaasoo filimkan uu ballan qaadi doono safarka arrimaha argushada dabiiciga kaasoo tiyaatarada uu kori doono Maarsa 8 2024. xiisaha weyn filimkan arrimaha argushada loo qabo ayaa waxay ka dhigaysaa in Yothika ay dib ugu salaaman doonto filimada Bollywoodka kadib 20 sano oo ay ka maqneed. Ajay Devgan ayaa maanta social media gaar ahaan qaybta Instagram-ka wuxuu soo dhigay muuqaalka kooban ee filimkiisa Sheedan, asagoo soo kale muuqaal kooban oo soconaya 1 daqiiqo iyo ku dhawaad 40 second, taas oo soo kale bilowga hore uu ku bilaabanayo erey ah wuxuu ku weydiin doonaa inay tahay game ee ma dheeli doontaa.
hase haatee iyousan kugu qaldin khiyaanadiisa. muuqaalkaas ayaa laga dheehan karay iyadoo sidoo kale ugu dambeyn muuqaalka ay kasoo muuqanayaan Armand Dafan oo qoslayo iyo sidoo kale Ajay Devgan iyo Atisha Yothika oo labadooda naxsan oo indhaha taagay, taasoo ka dhigan in Armand Dafan doorka xumaanta filimkaas uu leeyahay sidoo kale arrimaha khuraafaadka iyo sixirka madow in uu filimkaasi uu ku sameynayo, taas oo ay ka dhigayso inuu ku halaagayo Ajay Devgan iyo sidoo kale Atisha Yothika. filimka director waxaa ka Vishal Bal Shaytaan ayaa wuxuu yahay marka laga soo rabay hogaamiyaasha sidoo kale waxaa qaybka Janki Badiwala Abala Lalwani iyo sidoo kale Angad Raj, kuwaas oo filimkaasi door muhiim ah laga siiyay. filimkan ayaa soo saar waxaa ka shaqada G Studio iyo Ajay Devgan Films iyo Panorama Studio, kaas oo filimkaas la daawan doono maalinta haweenka adduunka ee Maars 8 ee 2025. Ajay Devgan sanadkan waxaa loo daawan doonaa ilaa iyo 5 filim. waxaana filimkan kasoo horan doona filimka Meydaan, kaas oo la daawan doono April, waxaana isku dhici doonaa filimka Premium Jotamian, kaas oo film xiiso leh arrimaha action ku dhameystiran, waxaana hogaamiye ka Akshay Kumar iyo sidoo kale Taageer Sharaf, waxaana director ka Ali Abbas Zafar. dhinaca kale daawada waxaan isla eegi doonaa filimka uu hogaamiye ka yahay Farun Dhawan, filimkiisa 18 ayaa magaca loo helay. Farun Dhawan ayaa sanadda 2023 wuxuu leeyahay filimkiisa Bawaal, kaas oo OTT-ga lagu soo fasaxay sanadkaasna waxa uu sanad u fiican kadib markii filimkiisa oo qayba OTT uu ka noqday filimka ugu daawashada badnaa marka loo fiiriyo filimkiisa. sidoo kale Atlin wuxuu sanadda 2023 u ahaa sanad weyn kadib markii uu leeyahay filimka Sharuqan hogaamiye ka Japan, kaas oo director ka wuxuuna hidku ugu weynaa sanaddan ka soo gudubna asoo dhamaan luqadooyinka lagu daawado waxay kuwa ay guuleysteen, wuxuuna film dhameystiran arrimaha madadaalada. markan Atli wuxuu isku bedelay film soo saara, filimkiisa ugu horeeyay oo soo saarkayaan waxaa hogaamiye loogu dhigay xidig Farun Dhawan, waana filimkiisa 18. markaana wararka ugu dambeeyay waxay qorayaan in filimkan magac loo bixiyay. haddii noqdaan wararka laga qoray markan ku warna filimkan ku saabsan arrimaha action-ka ayaa waxaa lagu yeeray Baby John, kaas oo shalay tolo film soo saarayaasha ay soo heleen shahaadada muuqaalka kooban ee qolada Central Board of Film Certification ee CBFC loo gaabiyo, kuwaas oo soo kalena filimkaasi magaciisa la sheegay in loo bixiyay Baby John. muuqaalka kooban waxaa la sheegay in maalmo kadib la soo fasaxi doono Sabtida ee January 27. marka laga soo tago Farun Dhawan, Baby John waxaa qayb ka Karti Thurash iyo sidoo kale Waqiba Gabi iyo xidig kale J.K. Shroff, waxaana director-ka Kalis wuxuuna film oo soo saaray Keen Atli iyo sidoo kale Bariya Atli, kuwaas oo shabakadooda Apple Studio ee soo saaray ka tahay. sidoo kale filimkan ayaa wuxuu yahay mid duubis ay ku bilaabatay Agoosto ee sanaddan ka soo gudubnay ee gudaha Mumbai, iyadoo sii xigtay jadwalada kale ee qeybaha Kuji. sidoo kale wararka waxay qorayaan in xidig Farun Dhawan uu dhaawac soo gaaray xilligii lagu guda jiray jadwalkii Mumbai ee filimka lagu duubay. qolada kale filimka ayaa waxay ka dhigaysaa in waqti ay ku qaadato inay sugaan. Kathy Quraish ayaa magac weyn waxay ka dhex sameynaysaa Hindiya, iyadoo noqonaysa filimkeeda ugu horeysay ee Bollywood ku soo gasho, halka Waqiba Gabina ee dhinaca kalena ee ahayd sanadda 2023 inay la yimaadeen filimada guuleysteen sida filmaanka showga ee Jubilee iyo sidoo kale film kale ee Kufiya, kuwaas oo inta badan OTT lagu soo fasaxay. iyadoo sidoo kale filimkan ayaa muuqaalkiisa kooban soo fasaxi doono ayaa weli waxaa si rasmi ah lagu dhawaaqay xilliga filimkan la daawan doono. intaa ayaan kusoo qabnay daawad warbixinadan xiisaha leh maanta laga qoray arrimaha koonfurta ee Bollywoodka, kuwaas oo waxaan warbixinada ugu dambeeyay la wadaagi karteen daawadayaashana ku taxan barta tusmada filmada. dad warbixinaha ka shaleegno soo saarso saxabtiin la wadaaga meel walba joogtaana waqtiga ha idin wacnaado.